الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إلهي ومحمد سبحانه وتعالى maanta oo ah maalin axada 29-ka bisha safar sanada 1446 hijrada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo waafaqsan labada bisha September sanada 2024 waxaa dhammaanteen sharaf iyo farxad weyn inoo ah inaynu isugu nimaadno madashan quruxda badan leh, madashan agaasiman ee bilan ee boqoraan ee aynu ugu talagalnay in aynu ku dhisno guri noqon doona guryaha islaamka. aynu isugu dhisi doono walaalkeen sheekh cabdilqani sheekh aadam cumar iyo marwadiisa qiimaha badan marwa nasra. waxaan insha allahu tacaala rajayn doonaa inay munaasabadu inoogu dhammaan doonto sida ugu quruxda badan leh. waxaan ugu horreyn idinka mahad celinayaa dhammaantiin anoo ku hadlaya afka labada qoysba, anoo si gaara ugu hadlaya afka caruuska, kasoo qaybgalkiina munaasabadan iyo sharafta kusoo sharafteen inaad noo timaadaan. mahadsantihiin. ilaahayna subxaanahu watacaala khayr idinka siiyo, miisaankiina xasanaadkana idinku cusbay. barnaamijkeena iyo barnaamijkeena wuxuu socon doonaa sadaqan kow sidii dhaqan iyo caado inuu ahay hadaynu nahay dad muslina. waxaynu munaasabadda ku furfuran doonaa aayadaha qur-aanka kariimka ah. labo waxaa xigi doona barnaamijkii dhaqanka oo labada qoys ee halkan maanta aynu martida u nahay ay isweydiisan doonaan insha allahu tacaala, gabadha isla siin doonaan biidni illaah. waxaynu xigi doonaa oo inoo xigi doonaa dhankii sharciga iyo in la meheriyo insha allahu tacaala gabadha. waxaana meherka u fadhiya sheekheeni sheekh maxamed cabdi umal. waxaa ku xigi doona kelmad hambalyo iyo duco ah oo odayaasha qaar iyo culimada aynu siin doono, kelimaad koobkooban. gabagabada waxaa inoogu dambayn doonta kelmad mahadnaqa insha allahu tacaala. waxaan soo dhowaynayaa mar kale iyo mar saddexaad dhammaan ka soo qaybgalayaasha si guud. si gaara waxaan u soo dhowaynayaa culimmadeenna qiimaha badan, kuwa meel dhowdhow ka yimi iyo kuwa meel dheer ka yimi. waxaan soo dhowaynayaa labada qoys, odayaasha salaadiinta fadhida manasada. waxaan soo dhowaynayaa si gaara ambaasadoorka ama safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Hindiya, ahna safiirkii hore ee dalka Soomaaliya u fadhiyay Kuwait, ambaasador Cabdalla Odawaa. dhammaantiin soo dhowaada. waxaan ku furaynaa munaasabadda aayadaha qur-aanka kariimka ah. waxaana inoo akhrin doonaa imaamkeenna sheekheena sheekh yaxye cabdi saciid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن
الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. إلهي سبحانه وتعالى شيخ هكابا المريو آيات القرآن الكريم كابنو أخريه إنك الله سبحانه وتعالى هينو أنفعه آيات القرآن الكريم كأين دقي سني وحان أقود بدونا دنكي دقنك وحانا وهرين عن مدرسة تنكسر دوين يا سلطان حامد وإن شاء الله تعالى دنك ويلك كالصعدة قبلنا دوني هدي لها كدقو سودو سلطان الصومالي waxay tiraahdaa hal magac dhabay ama kacday ama kurkursatay bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin marka hore kasoo qaybgalayaasha xafladan quruxda badan oo kala culamaa diinka oo ugu horeeyo Sheikh Maxamed Abdi Umar Sheikh Bashir Ahmed Salaad ninka culamaa diinka faraha badan Sheikh Usame oo dhankayga fadhiya iyo culimada kale gudaha ku jirta culimada markaan dhaafo siyaasiyiinta rugcada siyaasiyiin badan baa fadhida aqoonyahanka ganacsatada isimada dhalinyarada gabdhaha dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaanta baa qaataan soo salaantu duca ma ahayn bacda salaan ilaahay baa mahad iska leh ilaahay meeshaan quruxda badan isugu keenay innagoo isu doonaynaa laba dhalinyara oo aynu ehel u nahay mahad celinta ilaahay lama soo koobi karo mar kasta waxayna ku waajiba meel kasta iyo makaan kasta iyo saacad walba inaanu ilaahay u mahad celino ilaahay meeshaan quruxda badan isugu keenay inoo ogolaaday inaan carruurteenna saan isugu doonno waxaan kaloo u mahad celinayaa intii aan soo tiriyey iyo intaan magacooda ka tegey oo waqtigoodii qaaliga u soo huray cabdiqani iyo nasra waxaan idin leeyahay jasaakumullah khayr allah idin barakeeyo saamiya soo qaadeen iyo kuwa damaad qaadi doontaana ilaahay ajar badan ha idinka siiyo cuntada iyo cabitaanka meesha ka qaadanaysaana ilaahay shifo ha idinka siiyo inta mahad celinta alle iyo mahad celintiina markaan dhaafo waxaan isu taagay gabar iyo wiil aan labadaba ehel u ahay waan marka hore intii naasoo dhan aan rabo inaan weydiisto labada wiilkana adeer baan u ahay gabadhana adeer baan u ahay labadaba marka waxay igu soo aaday inaan wiilka gabadha u doono dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin marka hore gaar ahaanna waxaan ka codsanayaa jifida hoose oo aan idiin sheegay inaan gabadhaba adeer u ahay gabadha la yidhaahdo nasra cabdi salaad xaaji cabdi waanu doonayo cabdiqani sheekh aadan sheekh cumar waan isagana adeer u ahay dhammaantiin baan idinka codsanayaa
Soomaaliya oo dhan Muslim oo dhan haddii Carabi fadhido iyo haddii Soomaaliya fadhidoba gabadhaasaan u taaganahay in la isiiyo nin baqdin qabo oo baqayana maahi waxaan ahay nin awooda inaan iraado labada caruurtaba ana isku darsaday laakiin ninkii ku soo boodi lahaa oo isiin lahaa gabadha ha ka soo boodo dhexdeena wabillahi tawfiiq waa mahadsan yahay Suldaan Xamuud waxaan u yeerayaa oo codsiga ka jawaabi doona halkeedana dhigi doona insha Allah ta'ala ugaas Ahmed Maxamed Magan soo dhawaado ugaasku assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gabadha la weydiiyay oo majliska lagu warsaday Soomaali weyn laga doonay culimo iyo akhyaar iyo sanadiin gabdho iyo wiilal siyaasiyiin oo majliska lagu warsaday majlis weynaha magaca la igu yeeray anoo wato ugaaska beesha madaxaan ee East Africana ah ugaaska daaroodna ugaas Soomaaliyeedna waa bixiyay Allah isu barakeeyo faatixadana mara gurigaas guri baraka Ilaahay inuu ka dhigo guri awlaad iyo khayr iyo barwaaqo Ilaahay ka dhigo guurkaana guur raagay Allah ka dhigo faatixa bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين قراك وأنا نبرأي لكن ذاتك أن أغنى حيئين أن كنت تقصده هذا الكواسوق وأنا بركي سيء وأنا واكسين لا يخصه سلطان حامد أيان كعلن دونا إن شاء الله تعالى سو سنا وقام هذا عليو أما وقدرين عليو بحنتا قبل النبي بسم الله الرحمن الرحيم وقاس واسكفر السطحي انتان أدو مادة كهستا بان قبر كويديستي لكن أنا وستيدي بانو تاقنا إني قبر دونا يرى ما فريستنا أيو لما أنت واحد اللي كعد صنيعة ركلا مكسوا يني قبر السيارة لما أنت واحد اللي كعد صنيعة نكي صوب بدو عني وشغلي معه ninkii yiraahdo gabadha waa ku siiyay asxaabtu waan dhahay aad iyo aad baad mahadsantiin waxaan idin ka codsanayaa dhammaantiin ninkii kale oo ku soo boodi lahaa idinka yaqaan in gabadha la Nasra Abdi Salaad Xaaji Abdi in nikaaxi loo leeyahay raaciyo oo la yiraahdo Abdi Qani Sheikh Aadan Sheikh Umar hal waa u ogolaanay in lagu nikaaxo ninkii ku dhawaaqay lahaa ha soo boodo wabillahi tawfiiq waayahay aad iyo aad buu mahadsan yahay suldaanku waxa gabadha nikaaxeeda fasixi doona aan siinaya insha Allah ta'ala suldaan Maxamed Deeqow Macallin ku soo dhaw suldaan bismillah dhamaan marti sharafta xafladan oo isku timi waa xaflad cibaado waa xaflad dhaqan marti sharafta iyo culimada ugu weyn Sheekh Bashiir Axmed Salaad gudoomiye culimada Soomaaliyeed shiiqeena weynaa East Africa Sheekh Maxamed Cabdi Umul siyaasiyiinta ugu horeeyo halgamaaga weynaa muqaawamada Eritrea Sakariya oo maleena gabadha inuu awow u yahay وأنا السلام يا هرتا وحا وجيسي سنك قف بن آدنا دو هالي سيو وحانا كجيسي سنك دو واكسي قبل داس نصرا هدي أنا اللي وصل في حفلة دان إنان صحيح قدام بي تيم بري قدام بي سارو واساني وحي هنقولي كي جيرينا هاي اسكا سامنان قبدا شابا دو كل علمات مدى كلا وحي هذا الله هاي دقي بدنا فرددا ايغا ودينا يا وبالله التوفيق aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay suldaanku kelmadaas qiimaha badan leh oo inoo jeediyay iyo sida uu fasaxay nikaaxa waxaan u dhiibayaa nabadoon Farxaan Aw Aadan si uu isaguna
uga mahad celiyo kadibna waxaynu u gudbi doonaa barnaamijkeena kale insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى هذا مرتديسي يمعني ماشي لو يمد خيارتي هوري باتري وحان أنا وهذا دورك عن كل هاي ما كورن كريا ويهاي أولا إله سبحانه وتعالى إنكم هذيو سنة بتقليا سوق كان إنه مصالح ذينا أهل خيرة ولبا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقول شرعها ورقوي الإسلام اللي تابقلنا يوم اللي بيسيو الله سنة أمة علينا أولا ثانيا أمة علينا عد كستوع كسوق يبقى شيء علماء سياسيين تيجي دمان برشة قيبة إذا كلا دوان قبلها يدنا يرادا يسحافة يدين أولبا حضور كان يكسوق يبقى كان قيمها يسرف تبضن وأرنتاس حفلتاس لبضها اللي يرادا لسكوب دريو لسكوب عينيو أي كسوق هذا قيب كلين waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa khaas ahaan weydiisashadii gabadha khiyaartii ka jawaabtay iyo qoyskii gabadha oo bixintii waxa weeye codsigii loo gudbiyay loo soo jeediyay khiyaartu soo jeediyeen kale oo dhinaca wiilka ka hadlaysay si sharaf iyo qiimo iyo karaama ku dheehan tahay oo dhaqanka waafaqsan iyo islaamnimada labadaba ay uga falceliyeen oo gabadhiina ay u bixiyeen إن شاء الله تعالى حنسلها هاي ندور كديماني ودور كي علماء انتاس مهدلين تاس مبانا نقوكاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آديات بيوم عتيين دمان وضياشا لبدا قيس قيمها بدن إيمان تهل كان قبل اسكوي تسنية قيس كقبل أردادقها قبل دوني يا قيس كبيحيي انتو آديات بيوم عتيين الله يدشرفه وحنقول بيا بنكي شرعية waxaa meherinta gabadha insha Allah taala ku wareejinaya sheekheena Sheekh Maxamed Cabdi Umal si uu isugu guuriyo walaalkeen Sheekh Cabdul Ghani Sheekh Adam iyo Nasra Farah Mahmoud فليتفضل الشيخ مشكورا ماجورا. بسم الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الأخ عبد الغني زوجتك نصر فارح محمد بوكالة أبيها بمهر قدره $5,000 أمريكي. قبلت نكاحها وتزويجها بهذا المهر المذكور. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. نيكي قواد بحل هذا طهي واحد قواد يجي سنة على شيء دونه هذه ما بكون دبي وقاس هذا إن السودان دغوا أبتسيا متقاند قواد بحل دون الهيد بعد بحسي مركا أبتسيا كخطر وقاس برباك مقابية يقف وقاس بدح على لقمة ديبه شالتي بقرطوية صدو بارك يقابل صدو قبل بقرطوية صوتي وانا قبل بقرطوية أدونا وقاس باطي مركا
waxaan ma muruq keli doona kana qabo waa kii boqoradu dhiibi jiray ayaa raw qaadan kana qabo dadkoo dhan ma yaqaan mana soo gadaan dadkoo dhan dadka qaar baa soo gada ina deeqowna abtirsiin baa ka khaldamay maanta gabadhu asoo bixin la dooni lahaa ayuu yiri gabadhi anaa bixiyo marka maanta waa noqon doona maanta tanna waa tii badahaysido adii tii badahaysi mutaqan siyaasadda iska tuur baan ka rahay in aroosyadii bay keeneen iska dulqaadanana taas horta waa intaas aniguna reediini baan asagoo maxamuud saleebaan leelkasana anuu igu bahiya gabadha la bixinteedana anaa iska leh gabadhaa ku siiyaana kaa ceshana joog taas waa intaas inta labaad nin hadduu fagaara kugu gala fagaaraa la ysaga reebaa aniga adigana waa isnaqaanaa gabadhaadna siisay ka abaalna saad u guursatee loo xajiya suldaan baa dhalay gabadha abbaheedna wasiir weeyo siyaasi afqari ah weeyo jeerahaar baa la yidhaha awowgiis nin gaalkacyo ka sheegan buu ahaa suldaan guud buu ahaa nin daarood oo taliyuu ahaa gabar qaani ah laguu dhiibay gabadhaas si fudud hadday noogu soo noqoto ama waa guur badantayna naaga la gurgursadaan dagaalkanagu waa taagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ما شاء الله هاد ما تسيء وقاس على قيدنا قعنت هذيك جرتها waxaan ku soo dhaweynayaa sheekheena Sheekh Bashiir Ahmed Salaad kalmad kooban oo ducada dardaarana ayuu inoo oran doonaa sheekhu soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam marka hore waxaan barakallahu laka wa baraka alayka wa ja'alaka fi khair Allah isku barakeeyo intaas kadib hadda saala socotaan baa oo la sheegayay guurku waa sunnadii ambiyada gaar ahaan sunnadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu dhiirigeliyo oo ka hadlay weeye sidaan inay u dhacdo qurxoon oo wanaagsanna waa sida shariicadeenu qabto dhaqan ahaana dhaqankeena fiican uu taageeraya weeye waa mas'uuliyad lala kala wareegahayo waa guri la asaasahayo mas'uuliyaddu in la qiimeeyo u baahan tahay oo loo soo xaadiro oo goobjoog laga ahaaday u baahan tahay oo wax la weyneeyo marka guurka in la weyneeyo oo munaasabadiisa la yimaado oo la taageero waa sida shariicadeenna muqaddaska ay qabto weeyaan intaas kadib wiilkii gabadha waxaan u dardaarmaynaa insha allahu tacaala inay fahmaan in ay nolol cusub galayaan nolol mas'uuliyo iyo nolol maaragtay la dhaqmaayo qof kasta hadda ka hor siduu rabuu samayn jiray laakiin hadda kadib wada tashi iyo wada joog iyo isku warqab ayaa loo baahnaanayaa iyo dulqaad marka kaliya aad tahay iyo markii qof kale kula xariiro noloshu waa kala laba weeyaan marka waxaan leenahay Allah isku barakeeyo subhanahu wa ta'ala kuwii kala faa'iida oo isku barwaaqo Allah ka dhigo subhanahu wa ta'ala diinteenuna in sidaan guurka loo badiyo oo guurka la fududeeyo ayna amraysaa si ummadda muslimka ay u badato oo tarankeedu u bato insha Allah marka waan soo dhaweynaynaa waan ka ducaynaynaa hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh جزاه الله خيرا شيخ بشير آد ومهدسيه انت كتب ولا ليال وحان قبل مناسبة قيمها بدن له إذا كم هاد علينا يا مر لبعض كسوق يبقى لك مناسبتها كسوق يبقى شيء يسد أوصى عمرتين حق بينه وقولها هايين ويل كان يا قبل إنه بينه ما أنت سلاس أينو واقع يبقى له مناسبته ده أنا مر لبعض كهاد لي يافك لبعض كويس يافك عروس كباب حليه همبليو دمانتنا واحد كعد صنيعنا هالمرة تلاهان بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير
aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan si gaara ugu mahad celinayaa xildhibaankeenna xildhibaan zakariye oo runtii si gaara munaasabadan u bilay ahaana aan uga mahad celinayo inuu ahaa qofkii koowaad ee madasha yimi isagoo oo weliba isagu ah odaygii iyo xaajigii maanta ugu sarreeyey munaasabadan oo lagu karamaynayey gabadhiisana halkan lagu bixinayey aad iyo aad buu u mahadsan yahay sida uu noo sharfay ee uu noogu yimi waxaan ku soo dhowaynayaa kelmadda xidhitaanka xildhibaanka inuu hambaliyeeyo duceeyo ha ku soo dhowaado xildhibaanku isagoo aad iyo aad u mahadsan soo dhowow xildhibaan waa xildhibaankeenii weeye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka ugu horeysa waxaan salaamayaa xuduurkan oo dhan dadkan sharafta leh oo rag iyo dumarba ah oo Soomaaliyeed waxaan si gaar ah u salaamayaa shuyuukhdeena ugu horeeyo sheekhi jaliilka ahaa iyo sheekhi kale la midka ahaa oo labadaba aad taqaaniin magacoodana waa aqaana mana sheegayo waayo waa taqaaniin Soomaalidu dhan baa taqaana لأنه مقعد إلا شيء اللي باي ما شيخ بشير يا شيخ أمل وحن كلو سلام يا وقاسيدا يا سلطان مدى وهل كان فردية وقاس محمد ديقو وقاس مغن وقاس دكتور آدن وقاس محمد وقبل عذير كذا warmaharin ducadii iyo nikaaxii iyo isbarashadii iyo sisiintii waa dhamaatay gabadha Soomaali baa bixisay anigu awowgeed ma ana adeerkeed baanahay cabdi salaad xaaji cabdi weeye anayna maxamuud xaaji cabdi baanahay waxaan ku faraxsanahay in muxuu ahaa intaas ummadda Soomaaliyeed ay nasra bixisay oo isku nikaaxisay Cabdiqani iyo Nasro ilaahay waxaan uga baryaynaa وسلامي كل وسلامي أنا أقاس يا شيخ بان هرمري شيخ الله وادو يا مركا دمله مرة دلي سجده وأود عيننا إلهي وحنا ود عيننا ويلل يقبله خير بدن ودت كودا يدل كودا يدين تودا واحتره طبعا وادوكتي إنه guurku waa sunnada Ilaahay sunnooyinka Ilaahay ku jira oo uu ugu talagalay ummadiisa sida qorraxda iyo uu abuuray dhulka iyo koonka nabi aadam uu ka bilaabay xaawo hadda waa sunnadaas waa cibaado markii sida loo sheegay waa cibaadaysan imaantay ummadda Soomaaliyeed in loo duceeyo dhibta haysta oo haysata oo duulaanka joogtada ah iyo hadii ku rooyahay looga duceeyo hogaano wanaagsan Ilaahay inuu siiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياهي مرة الحلبان كحدي لقى طبعا حد ما يو وحن فصحى يا عنتضى يا قددا كرر لي هذا وحكستو قابز وحكي كيمي كرر لي هذا حفصا كمناسبة كيمي هذه أدوم هتسنتين دمانتين وأنا دي محد علي يا سجارنا ولا لا شقينا يا هوشان رجي وتاجنا يا سجارة وسيم محد علي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.